بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وعنو وناكسن داوديال ملكستو دافع عالم كجوكتان كسو دوادا وركريستي بيانيغو باجي عبد الله السلادة يا إذن لسعسينيسا qodobada warkeenaad ku daawan doontaan waxaa kamida madaxweynaha Soomaaliya ayaa sharci daro ku tilmaamay doorashooyinka isbarbar socda ee ka dhacaya magaalooyinka Ceelwaaq iyo Garbahaare ee gobolka Gado. Madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland ayaa guddi u magacaabay shaqaqadii ka dhacday degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ee Puntland. ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ayaa kooxda Al-Shabaab kala wareegay deegaano dhaca koonfurta gobolka Mudug. Qaramada Midoobay ayaa ka digtay cadeemo dheeraad ah ku saabsan dambiyada dagaalka uu Ruushku ku qaaday Ukraine. Haatan ku soo dhawaada qodobada iyo kuwa kale oo faahfaahsan iyo hadba wixii nagu soo kordha. madaxweynaha Soomaaliya ayaa sharci daro ku tilmaamay doorashooyinka isbarbar socda ee ka dhacaya magaalooyinka Garbahaare ee gobolka Gado. madaxweynaha ayaa afray golaha wada tashiga qaran inay si degdeg ah iskugu yimaadaan si xal dhameystiran loogu helo kuraasta tala gobolka Gado. warkaasi waxa inoo haya waryaheena aan Soomane. wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in doorashooyinka isbarbar socda ee ka dhacaya Garbahaare iyo Ceelwaaq yihiin kuwa sharci darro isla markaana baalmarsan sharciga jihaynta doorashooyinka dadban oo ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. wareegtadan ee ka soo baxday xafiiska gaarka ee madaxweyne Farmaajo ayaa lagu socodsiiyay madasha wada tashiga qaran ee gudoomiyaha ku meel gaarka ee golaha shacabka in lagu faray in la xushmeeyo heshiiskii 17 September ee 2020 iyo habraaci ee ku lifaaqan ee xubnaha madasha wada tashiga qaran ee kala saxiixdeen 1 Oktoobar 2020 iyo 17 bishii May 2021 qof lagu soo doortay hanaanka khilaafsan heshiiska doorashooyinka xeer la barsodon ma yeelan karo xuquuqda la mid ah xuquuqda baarlamaanka la soo doortay hab waafaqsan heshiiskii 17 September 2020 sidaas darteed kama qayb qaadan dooro doorashooyinka gudoonkii tan madaxweynaha iyadoo aan la helin heshiis ay wada gol u gaareen madasha wada tashiga qaran si waafaqsan heshiiska 17 September ma uusan soo gaarin baarlamaanka 17 ee sharci ka bedelaya xeerka baarlamaanka labadiisa aqal ee hore oo ansixiyeen ayaa lagu yiri wareegta ka soo baxday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. madaxweynaha ayaa tilmaamay wax ka bedelka heshiiska 17 September iyo habraacyada lifaaq ay u baahan yihiin heshiis siyaasadeedsan oo ay dib ugu wada xaajoodaan xubnaha madasha wada tashiga qaran isagoo faray si degdeg ah isugu yimaadaan si xal loo dhameystiran looga helo kuraasta 16 kursi ee Garbahaare taala. maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa adkeeyay in la sii dardargeliyo doorashooyinka loona madalsan yahay gudoonka labada aqal iyo tan madaxweynaha doorashadooda in xilligan si rasmi ah loo soo gabagabeeyo doorashooyinka guud ee xilligan dalka ka socda. hadalka madaxweyne Farmaajo ayaa imaanaya xilli dalka ay ka socoto doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya welina aysan dhamaan waxaana la filayaa in dhawaan dalka ay ka bilaabato doorashada gudoonka baarlamaanka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana xigta tan madaxweynaha Soomaaliya oo xilligan ku loolamayaan mas'uuliyiin iyo siyaasiyiin saameyn ku leh siyaasadda Soomaaliya. madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland ayaa guddi u magacaabay shaqaqadii ka dhacday degmada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ee Puntland. madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa sheegay in cid walba oo ku lug yeelata shaqaqadii ka dhacday halkaasi in tilaabo sharciga waafaqsan lagu qaadi doono. warkaasi waxa inoo haya wariyayna Cabdirashiid Sandheere. madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa waxa ugu horeen oo ka tacsiyay dhibaatadii ka dhacday gobolka Mudug gaar ahaan degmada Gaalkacyo waxaana uu sheegay in guddi uu xil saaray. waxaan aad ugu xumahay dhibaatadii ka dhacday xalay magaalada Gaalkacyo oo la kulmay wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga mudane Cabdi Saciid Muuse. Axmed Cilmi Cismaan Karaash madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa uu cambaarayay falkaas sida uu u dhacay waxa uu sheegay in uu magacaabay guddi baaris degdeg ah ku sameeya lana xisaabtami doono. baaristan ma dhici doonto in halka looga haro ayuu sheegay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash. wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali ayaa waxa uu ka hadlay weerar ay ku qaadeen ciidamada Puntland goob oo ku sugnaa oo afur loogu sameeyay waqooyiga magaalada Gaalkacyo. wasiirka ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ilaaladiisa ay fashiliyeen isku day dil oo la doonayay in lagu qaarijiyo sida ay u dhacday. isku daygan dil ayuu waxa uu ku sheegay in ujeedka ugu weyn uu ahaa in la qaarijiyo iyadoo lagu jiro xilli afur ah. wasiirka ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay waxaan shalay gaaray magaalada Gaalkacyo si aan waqti ula qaato qoyskeyga maalmihii ugu dambeeyay ee bisha barakeysan ee Ramadaan. fiidnimadii caawa ayaa waxaa qoyskeyga anigaba afur noo sameeyay nabadoon Yaasiin Cabdi Samad waxaana
aan gurigeenu ka soo baxnay aniga oo lugeynaya iyo 4 ka mid ah ilaaladeeda iyo 2 sargaal oo dharcad ah ayuu intaa ku diray wasiirka arrimaha dibadda wuxuuna sheegay in ay fashiliyeen ilaaladiisa isku day dil oo la doonayay in lagu qaarajiyo balse waxa halka ku geeriyooday Allah u naxariistay mid ka mid ah ilaaladeeda oo si xun ay u dileen ciidamada weerarka ayaa yimid kadib saacado markii guddiga amniga ee gobolka Mudug ee Puntland ay soo saareen digniin culus taas oo ku aadan in gabi ahaanba laga mamnuucay magaalada Gaalkacyo shirarka siyaasadeed ee lagu qabanayo gobolkaas gaar ahaan magaalada Gaalkacyo oo bilihii dambe ka socotay doorashooyin kala duwan taliska booliska ee gobolka Mudug ayaa sheegay in sidoodaba ay fulin doonaan go'aanka ka soo baxay guddiga amniga ee gobolka taas oo lagu xoojinayo amniga meeshana looga saarayo amni darada soo noqotay ee ka dhaceysa gobolka ciidamada wasiirka soo weerartay ayaa waxaa la xaqiijiyay in ay ka tirsan yihiin Puntland waxaana weerar ay ku soo qaadeen beer ay ku sugnaayeen wasiirka arrimaha dibadda iyo nabadoon Yaasiin Cabdisamad weerarka caynkan ayaa ku soo beegmaya maalmo kadib markii nabadoon Yaasiin uu baaq u jeediyay Siciid Cabdullaahi Deni kaas oo ku aadan in uu wareejiyo xilka madaxweynenimada ee Puntland ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ayaa kooxda al-shabaab kala wareegay deegaano dhaca koonfurta gobolka Mudug deegaanada ciidamada ay kala wareegeen ayaa gaaraya 10 deegaan oo in muddo ay ku sugnaayeen kooxda al-shabaab warkaasi waxa inoo faahfaahinaya wariyeena Cabdirashiid Sandheere ciidanka daraawiishta ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa maalintii labaad waxa ay koonfurta gobolka Mudug ay ka wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga laguna dagaalamayo al-shabaab oo mararka qaar weeraro ay ka fuliyaan deegaano kamid ah gobolkaas ciidamada ayaa waxa ay sameynayaan howlgallo ku aadan in guri ay u gadaan xaafadaha magaaladaas waxayna ku soo qabteen dad dhowr ah oo la xiriirinaya inay ka tirsan yihiin al-shabaab ciidanka oo kaashanaya ciidamada sirdoonka qaranka ee NISA iyo kuwa abaabula dadka deegaanka ayaa waxa ay saraakiisha hogaaminaysa ay sheegeen in howlgalkan ujeedkiisu yahay sidii al-shabaab loogu xureyn lahaa dhammaan deegaanada dhacan koonfurta gobolka Mudug sidoo kale saraakiisha ayaa waxa ay xaqiijiyeen in saacadihii la soo dhaafay xubno ka tirsan al-shabaab isla markaana wali ay ciidamada kala duwan ay ku raad joogaan halka ay ku sugan yihiin deegaanada ay ciidamada howlgalka ay ka fuliyeen isla markaana ay la wareegeen waxa kamid ah Shabeelow Hareeri Dheere Cimaamad Dhighaye Laasgacmey iyo deegaano kale oo dhowr ah waxaana wali sii socda howlgallada lagu xureynayo qaybo badan oo kamid ah gobolka Mudug si kastaba ha ahaatee deegaano dhaca koonfurta gobolka Mudug ayaa inta badan waxaa weerar ka geysta kooxda al-shabaab waxaana saraakiisha ciidamada ay sheegeen in ay sii wadi doonaan howlgalkan ka dhanka al-shabaab si looga sifeeyo deegaanada ay ku sugan yihiin ee maamulka Galmudug Cabdirashiid Sandheere Rise TV qaramada midoobay ayaa ka digtay cadeemo dheeraad ah oo ku saabsan dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka ayaa ka dhawaajiyay qeyladaanta ku saabsan cadeemaha isa soo taraya ee dambiyada dagaalka ee Ukraine isagoo ku booriyay labada Kiev iyo Moscow inay ku amraan dagaalyahanada inay ixtiraamaan sharciga caalamiga ah sawirada dayax-gacmeedka ayaa muujinaya wax u muuqda xabaalo wareedyo ku hareeraysan qubuuro u dhow Mariupol halkaas oo ay saraakiishu sheegeen in Ruushku uu aasayo meedadka si ay u qariyaan dambiyada dagaal ra'iisul wasaare ku-xigeenka Ukraine Iryna Vereshchuk ayaa sheegtay in aysan jirin wadooyin bini'aadanimo oo laga furi doono guud ahaan Ukraine jimcaha qatarta ka jira wadooyinka Washington ayaa sheegtay in sheegashada madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee ah in Moscow ay xoreysay magaalada la go'doomiyay Ukraine ee Mariupol ay tahay weli macluumaad qaldan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa u ballan qaaday Ukraine hub culus oo dhan $800 milyan madaxa baanka adduunka ayaa ku qiyaasay duulaanka Ruushka uu sababay khasaaro dhan $60 bilyan oo soo gaaray dhimashada iyo kaabayaasha guud ahaan Ukraine ilaa iyo hadda weli waxaa socda duulaanka Ruushka uu ku qaaday dhigiisa Ukraine iyadoo dalal badan oo adduunka ah ee eedeeno badan u jeediyeen madaxweynaha dalka Ruushka Putin oo ay ku sheegeen inuu yahay dambiile dagaal isla markaana ay dalalkaasi si weyn u cambaareeyeen duulaankii gardarada ahaa ee uu Ruushka ku qaaday dhigiisa Ukraine dawladda Soomaaliya iyo midowga Afrika ayaa ka wada hadlay ammaanka garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho midowga Afrika ayaa sheegay in si dhow ay Soomaaliya ay kala shaqeyn doonaan ammaanka guud ee garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho
warkaasi waxaa inoo faahfaahinay wariyaheena Cabdifitaax Xareed. wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan waxa uu la qaatay ku-xigeenka ergeyga midowga Afrika ee Soomaaliya Mrs Fiona Lerton oo dhawaan la sheegay in midowga Afrika uu soo wakiishay inay la wareegto shaqadii danjirihii hore ee Francisco Madera ee dhawaan ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya uu shaqadii ka joojiyay kuna amray inuu dalka iskaga baxo. kulankan wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada iyo danjire ku-xigeenka midowga Afrika ay isku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagaga hadlay amniga garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho iyo waliba sidii loo sugi lahaa xayndaabkiisa. waxaana ergeyga midowga Afrika ay sheegtay in si dhow ay ula shaqeynayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalka ee Soomaaliya Durraan Faarax ayaa dhankiisa waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo wada shaqeynta saraakiisha sare ee ATMIS iyo midowga Afrika waxaanu intaasi ku daray in talooyin wax ku ool ah oo dhanka amniga iyo nawaaxigiisa la isdhaafsaday. kulankan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhawaan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay dalka ka cayrisay wakiilkii midowga Afrika danjire Francisco Madera oo lagu eedeeyay inaanu ahayn shakhsi dalkan laga rabo. waxaana sidoo kale taasi ay sababtay in midowga Afrika ay si ku meel gaar ah shaqadii xafiiskooda ay ugu wareejiyaan ku-xigeenkii midowga Afrika ee danjire Francisco Madera oo lagu magacaabo Mrs Fiona Lerton. kulankan sidoo kalena waxa uu ku soo aadayaa xilli dhawaan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay dib u furtay terminalkii ay muddada xidhnaa ee ay ciidamada AMISOM ka soo degi jireen ee Mufcon kaasoo hore dacwad wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ugu gudbisay awgeed loo xidhay. wafdi ka kala socda guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa maanta gaaray degmada Ceelwaaqi gobolka Gado. warkaani waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheena Anas Soomane. wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal Muuse Geelle Yuusuf ay weheliyaan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa maanta gaaray degmada Ceelwaaqi gobolka Gado. wafdigan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha degmada Ceelwaaqi ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda amniga gudaha Jubbaland Sareeyagaas Yuusuf Xuseen Cusmaan Doomaal iyo xubno ka tirsan maamulka degmadaasi. ujeedka wafdigan ee doorashooyinka heer federaal ee u tageen degmada Ceelwaaqi ayaa waxa uu yahay doorashada 16 kursi ee kamid ah golaha shacabka oo maanta si rasmi ah uga bilaabatay degmada Ceelwaaqi gobolka Gado. ugu horeyn gudoomiyaha degmada Ceelwaaqi gobolka Gado ayaa wafdiga ku soo dhaweeyay degmadaasi isagoona sheegay in Ceelwaaqi xilligan diyaar u tahay qabashada doorashada kuraasta 16 kursi ee Gado taala. soo dhaweynaya ama degmada Ceelwaaqi aan ku soo dhaweynaya guddiga hirgelinta doorashooyinka oo madax u yahay gudoomiyaha Muuse Geelle ku-xigeenkiisa Maxamuud Mawlid Mataan iyo xubnahoodii oo la socda. waxaa kaloo soo dhaweynayaa guddiga xalinta khilaafaadka iyo xubnahoodii oo la socda. dhinaca kale gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geelle Yuusuf iyo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland Siyaad Maxamed Mursal ayaa si wadajir warbaahinta ula hadlay goobta ay ku sugnaayeen waxayna ka hadleen saabsamo socodka doorashada kuraasta gobolka Gado ee deegaan doorashadoodu ay tahay deegaanada Jubbaland siiba gobolka Gado waxayna faahfaahin guud ka bixiyeen habsamo socodka guud ee doorashooyinka ka socda degmada Ceelwaaqi gobolka Gado. annagu hadda hawshan sida aragtaan habsibayna u socotaa shahaadooyinkii waan bixinay waa la qaatay waxaan noo dhimanaa hadda cod bixintii insha Allah taala marka cod bixintana ay bilaabato waxaan jecel lahay insha Allah inta aan ka gaarno maanta inaan qabanno muddo gudoomiye inta aan ka gaari weynaa waa soo ogaan doonaa insha Allah soo dhawaada aad jala gudoomiye ku-xigeen guddiga khilaafaadka xubnaha ka jooga gudoomiyaha guddiga siit Jubbaland iyo guud ahaan xubnaha ka jooga aad baad u mahadsantihiin soo dhaweynta aad nagu soo dhaweyseen magaalada Ceelwaaqi oo aan u nimi inaan u kuurgallo qaabka doorashada u socoto maanta ka bilaabatay iyo xaaladaheeda amni iyo situationka guud oo doorashada si aan ugu kuurgallo. waxaan aragnaa inay doorashadii u socoto si caadi ah waxaan aragnaa in bulshadii
guud ahaan ay meeshan wada joogaan ergooyinkii. si kastaba degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado ayaa waxaa la filayaa inay ka dhacdo 16 kursi ee gobolka Gado taala waxaana xilligan hareeyay muran badan isla markaana u dhaxeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. garbahaare ee xarunta gobolka Gado ayaana iyadana lagu wadaa in dhawaan ay martigeliso doorashada 16 kursi maadaama xilligan ay khilaaf xoogan uu ka dhaxeeyo maamulka gobolka Gado iyo hoggaanka sare ee Jubbaland. wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Jubbaland ayaa gaaray degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado. ujeedka safarka madaxweynaha ayaa ah inuu ka qayb galo doorashooyinka halkaasi ka dhacaya. warkaasi waxa inoo faafahinay wariyeen Cabdifataax Xareed. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxa uu gaaray gobolka Gado halkaas oo ay ka socoto doorashada xildhibaanada baarlamaanka ee ka soo baxaya deegaan doorashada labaad ee Jubbaland. madaxweynaha waxa garoonka diyaaradaha ee magaalada Ceelwaaq ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo maamulka magaaladaasi. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa sidoo kalena waxa uu ujeedada u tagay halkaasi ahayd sidii uu soo kormeero doorashada ka socota Ceelwaaq oo laga soo wareejiyay garbahaare. waxaana sidoo kale doorashadaasi lagu soo dooran doonaa xildhibaanada Jubbaland ku matali doona baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya gobolka Gado. Axmed Madoobe ayaa goobjoog ka ahaan doona doorashada lagu qabanayo kuraasta degmada Ceelwaaq isagoona u kuurgelaya habsami socodka doorashooyinka. waxaana uga mahad celiyay gudida doorashooyinka ee kala duwan dadaalka kala go'al lahayn ee hawshan ku bixiyeen. safarkan madaxweyne Axmed Madoobe uu ku tagay Ceelwaaq ayaa laga cabsi qabaa inay sii kululeyso xaraaradda siyaasadeed iyo khilaafka ka taagan deegaan doorashada garbahaare oo markaasi 16 kursi ee yaala Gado lagu qabanayo iyadoona sidoo kale gudida doorashooyinku ay hore u soo saareen in garbahaare doorashadeedii loo wareejinayo Ceelwaaq. ilaa hadda lama garanayo khilaafka ka sii dhalan doona deegaan doorashada la wareejiyay Ceelwaaq ee markii hore ahayd inay ka qabsoonto garbahaare. baarlamaanka Soomaaliya ayaa intiisa badan waa la soo gabagabeeyay waxaase dhiman deegaan doorashooyinka Jubbaland oo iyaduna markaasi ay ku harsan yihiin xildhibaano. waxaana la filayaa in 27 bishan la doorto shirgudoonka baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. safarkan madaxweynuhu uu ku tagay Ceelwaaq ayaa sidoo kale waxa uu ku soo aadaya kadib markii Villa Soomaaliya ay maanta ka digtay in la wareejiyo doorashadii ka dhici lahayd garbahaare. guud ahaan daawadayaal qodob-wareedkaas ayaa ugu dambeeyay warkeena Rays TV anigoo Bahja Cabdullaahi Salaad ayaa idin la socodsiinaysay. intan dib dambe uu kulmi doono warkan warka xigaan idinku ugu dhaafo sidaa iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.